الأدب مع الله سبحانه سيدين إلهي وقعد بسنين قفك بني آدم كأدبت ووحلقوا أمانه أدبت وإنسان كقروح ديس وقف أنشح له حشود له عدوى بحق هذا السيئة لقن كينا وحا كتيرين مركا الله الدعاين أي أرضيقا أيها وضياش وحا ورنترين أذر أفلح waxaad ku aflaxdaa aqoon iyo aadaab idan cid laga edabsada ilaahay baa wanaagsan subxaanahu wa tacaala aadaabta ilaahay laga adaabsanaya waxay leedahay nidaam sharcigu dhigay dhowr iyo 10 qodob oo ah sidaynu ilaahay uga edabsanayno ayaynu xusi doonaa si aynu u fulin karno wixii aynu ka soo warramaynay khudbadii hore ee ahaa waajibaadka qofka laga doonayo sida ilaahay looga edabsanayo waxa kow ka ah in xaqiisa aynu siino subxaanahu wa tacaala mucaad buu nabigu la hadlay wuxuu yidhi atadri ma xaqu llahi cala alcibaad wama xaqu alcibaadi cala allah mucaadow ma taqaana xaqu ilaahay addoomaha ku leeyahy iyo xaqa ilaahay addoomuhu ku leeyahy xaqu ilaahay addoomaha ku leeyahy waa inay keligii caabudaan oo wax kale aanay barbargelin wax walo ilaahay uu nafarayana had iyo jeer waa ku horreysiiyo markuu rasuulada dira kaasuu faraa markuu inala hadlaya kaasaa u horeeya wacbudullaha walaa tushrikuu bihi shay-a waxyaabuhu ilaahay gaarka u leeyahin isaga aan la barbargelin wax kale waa in laga daayaa istusnimada iyo ismaqashiinta oo waxaa la yidhaahdo ashirk shirkiga weyn iyo ka yar labada qayboodba waa laga daynayaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uma qalmo kumana habboona inaynu cid kale ku lamaanayno wuu inagu filan yahay adaabta waxaa ka mida oo saddexaad muraaqabat llahi subxaanah fallaahu mudalicun calaa jamiici khalqi waa inaad ogaataa inuu ilaahay ku eegayo sida qisada iminka aynu ka soo warramaynay dhex martay cabdillaahi bni cumar كتب السيرة قاركودنا إنه عمر هذا الشيغان وحوي منين أدينا كعل نقف كان أفعال الجرنين إن اللي يراها أري لا تشوجه أيويمي ابن عمر وعكوري قال إن لا أفر قال وإحنا لا عمبورا وان صومان هيبو وما واحد صومان تيبو وقت كان كلول يمشي قرفة أدو تشوجه وحضرنا مركانو تجابيو بالأمانة دي سيو iyo wanaagga uu leeyahay marka wuxuu waxaan doonayaa arigaaga inaad mid nasiiso mid naga iibiso buu mid naga iibiso si aan waliba aad noola cunto oo aad ugu afurto galabta malihiya waxa la buu ninkii sayidkayga ahaa waxaad ku tidhaahdaa buu neefka waxa cunay bahal intuu iskaga dhaqaaqay baa wuxuu ku yiri fa ayna allah ninkii ariga lahaa hadduu maqan yahay ilaahay xaggu jiraa miyaanu ilaahay joogin ابن عمر انتو ويبو يريقي كوعد عليه فأين الله إلهي حقو جوغا إلهي معناه ننكا يريقا وكل واقعي أيا آدي آدو عجب قليا وسودا ويي وحقيمة بدناها قصة واحد المامة السائن عبد الله بن عمر نكي بادي دوني كدبنا وسوي بسدي أريقي نكي أدون كهابا انتي والعق بدنا ودقاي أو كنا عسيا نكي لها كدبنا وحري نكي أدون كهابا isagoo uga abaalgudaya khayrku sameeyay iyo muraaqabadiisa sidoo isha ilaahay isaga eegay subxaanahu wa tacaala arintani waa arrin aan badnayn casrigan inuu qofku isha bani aadamka iska eega mooyaane iyo isha sharciga inuu isha ilaahay iska eega insaanka hadda kuma badna waxa jira inaynu ogaano wasaa'ilul muraaqaba inaad ogaato weeya meelaha laga soo eegayo kow waa caynullah إشي إلهي سبحانه وتعالى وحا إشا وحا أورك كترية وحا أوغدا هذا كم وغضل بضب واسكو مد رب سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جوابك أبو راسي ذانو كوغين وحا إنوغانا إنا ملائك وإنو ديرين يجرتون شقا كلاب لهين إنا قول موياني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وحو كنا واقبا ملك با إيغايا أو ترينايا هذا هذا مال كلا وشقتك تيجونا إنك ينوسو شقتك
marka qofka isla malaa'igtu wixii ay ka qorayeen bal ka fiirso wuxuu oran maayo waanaad ku xisaabtantaa naftaadu lawaama ma tahay oo markaad xumaan samaynayso naftu ma ku canaanataa mise way kugu dhiirisaa marka aan nafsu lawaama ee quraanku uu sheegay nafta qofka canaananaysa iyaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha ku eegaya waxa ka mid ah acdaa'uk xubnahaaga kugu markhaati kacaya xubnaheenu waa markhaatiyada ka mid yihiin quraanka ilaahay uu ku xusay markuu qofku qiyaamaha diido markhaatiyadii kaloo dhan ilaahay isagu markhaati isaga dhigaya alyawma naqtimu calaa afwaahihim watukallimuna aydiihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun afkii baa la xidhayaa xubniba hadlaya aniga waxaasuu igu qabtay anna waxaasuu igu sameeyey meel waliba way hadlaysaa ka fiirso waxa aynu ogsoonnahay muraaqabada ilaahay subxaana wa tacaala qofka isha ilaahay iska eegi waaya fadeexad alla u taagan bani ubayriq nimanka la odhan jiray qisadooda suuratu nisaa ay ka warrantay haddaad dhegaysato waad garan karaysaa siduu ilaahay qofka u fadeexadaynayo waa niman waxay ahayn qoyska tuugada iyo waxaa ku yara dhaqmo oo madiina deganaa waxay xadeen dad bay xoolo ka xadeen niman yuhuudana way ku masabideen odayaashoodiina way u ergey u dirteen nabiga calayhi salaatu wasalaam ay leeyihin waxaan maanaan xadina yuhuudigaasaa xade ha la saaro yuhuudigaasaa looma ooyaana aan saarna bay yidhaah qur-aan dhan baaba soo degayba iyagiina lagu eedaynayo ciddii ay ku been abuurteenna lagu beri yeelayo qur-aanka 3 meelood buu kusoo noqdaa ereyga raqiib macnaheedu waxa weeyaan inaynu ogsoonaano ilaahay inuu ineegayo subxaanahu wa tacaala salafuna saalix iyo dadkeennii wanaagsanaa qofka ay ogaadaan in arrintaasi ay ku weyn tahay oo ilaahay uu iska eegayo subxaanahu wa tacaala cabsida alle ay ku jirto oo xagga alle uu iska eegayo aad bay ugu hanweynaayeen cumar ibnu khadaab habeenada ka mida ayaa isagoo magaalada madiina eegaya axwaasheeda iyo dhibaatada ka jirta u kuurgalaya way ku dhowaan jireen mujtamaca si ay warka dhabtaa u helaan oo aan waxuun loogu warinin ayaa wuxuu maqlay dee xaafaduna bangalooyinka waaweyn iyo maxaa ma ahayna buul yar baahaanoo qofka markaad ag maraysa aada warkiisa maqlayso ruux dumaroo gabayaysa buu maqlay oo waxay leedahay alaa taala haada alleylu waswada jaanibu wa araqanii an laa khaliila ulaacibu fawallaahi lowla allaahu tukhshaa cawaaqibuh laxurika min hada asariiri jawaanibu macnaheedu waxa weeyaan haddaanay cabsida ilaahay jirin iyo cidhixumada dembiga laga dhaxli karo iyo anigoo ilaahay ka cabsanaya subxaana wa tacaala ninkaygiina xaq dhowraya caawaan sinaysan lahaa ayaa warka kusoo ururaya ninkeedii baa muddo dheer ka maqnaa gurigii waa calaamadeeyey kadibna waa la waraystay wuxuu ka mid yahay baalay mujaahidiintii muddo maqnaa ninkaas go-aan buu gaadhay cumar uu leeyay gabadhaasi waa gabadh wanaagsan warkaa ay sheegtayna waxaan ku qaraar qaatay colku markuu intaa maqnaado 4 bilood 3 bilood in la soo bedelo colkii hore oo ku kale lagu bedelo si aanay raggu dumarkooda ka badan 3 bilood 4 bilood aanay ka maqnaanin waxa kale inuu ogsoonahay inantii marar badan qisadeeda maqasheen Umar uu iyadana dhageystay habeenimo ee hooyadeeda tiri caanaha biye ay tiri Umar uu mamnuucay caanaha la barxo tee Umar inama arkay ilaahay baa ina arkaya Umar hadii uu Umar inama arkay ilaahay waxay leedahay Umar inama arkay caanaha biye hooyadii hadaan Umar ina arkaynin ilaahay baa ina arkaya bay leedahay inantuna waxa uu guriyay namadiisa mid kamidoo awlaadeedii faraceedii waxa ka soo baxay baa la yiraahdaa boqorkii caadilka ahaa ee Umar ibn Abdul Aziz ilaa qofka dunta wanaagsan diinta ku fiican wala doortaa qisaska waxa kamida ruux dumara ayaa sida uu markaa ibn Jawzi kitaabkiisa safwatu safwa ku soo naqilayo عن الأسمعي nin reer miya gabadh shukaansaday ama doona inuu xumaan ku sameeyo kadibna uu aad buu muslaxday wuxuu ku soo daray meel cidlaa baynu joognaa cid alla cidina arkaysaa ma jirto illa alkawaakib xidigaha mooyaane caawa
cidlaynu taaganahay ciddayna arkaysaa waa xidigaha unbayt ayuu leeyahay xidiguna waxba inaga sheegi maayaan marka xumaanta aan samayno waxay leedahay fa ayna idaa lam yaraana ila alkawaakib fa ayna almukawkib haddaanay kawaakibtiiyo xidigaha mooye wax kale ayna arkayn ilaahay xidigaha abuuray mee sidii baa ninkii kaga joogsada ilaahay kaga badbaadiyey macasidii qiso kale oo afraad nin baa ruux dumara buu guursaday oo miyaro ah wuu qarin jiray laakiin xaaskiisu way ogey xaaskiisu waxay ka warhaysay in guri halkaasa gabadhi u degan tahay ninkii si deg dega buu u dhintay laakiin gabadhii dambe wuu furay ta horena may ogeyn markaa gabadhii hore tii bay raadsatay markii dhaxalka ay gaadhay way la kulantay way waraysatay ninkaasi soo xaas uma adayn haa soo ma ogid inuu dhintay dhaxalkii qaybtaadii waan ku hayaa ila labadeennaa wada qaybsanayne waxay tidhi aad baad u mahadsan tahay laakiin waxaan kuu sheegayaa waxaan kaa dhicinayaa dhaxalka ma jiree wuu i furay markaa labadoodaba waxaad arkaysaa inay ilaahay iska eegayaan subxaana wa tacaala oo tan horena may odhan intii dee suuqa madowhayda uu qarsanayay dhaxalkii ka qaad tii kalena may odhanin haba ku furee kol hadday kuula timi ka qaado idan wixii aad ilaahay daraaddii uga tagto bedel khayr qabaa ilaahay addoonka ka siinaya subxaana wa tacaala taariikhda wanaagsanna waa ku gelaya marka qadiyadaasi oo maanta inagu yar waxyaabaha ilaahay lagaga edabsanayay ka mid tahay inuu qof ku xisaabtamo ana cayna allahi naadiratun ilayh ishii ilaahayna hayso qofka muuminkana taa wuu kaga duwan yahay qofkaan iimaanka lahayn waxaa ka mid a waxyaabaha aynu ilaahay kaga edabsanayna alisticaanatu billaah wax kastoo inagu adkaada awooddeenna iyo aqoonteenna inaynaan isbidine ilaahay aynu la garabsanaynu la kaashanno ida istacanta fastacin billaah idaa sa'alta fas'al illaaha waida istacanta fastacin billaah nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabigaa markuu la talinayo isaga oo inaguna aynu kula midnahay inana aynu la midnahay wuxuu leeyahy markaad cid wax weydiisanaysa ilaahay weydiiso markaad cid gargaar weydiisanaysana ilaahay keliga weydiisa subxaana wa tacaala asbaabta waad la imanaysaa iyo wixii dadaala laakiin mar walba ducada dadaalka daacadnimada waa la isku darayaa si ay waxaynu hirgalaanay u hagaagaan adaabta waxaa ka mid a maxabatullah ilaahay inaynu cid walba ka jecellahay naftaada ubadkaaga ehelkaaga awlaadaada wixii ilaahay la xidhiidha cid walba ka horraysii haddaad ilaahay jeceshood cid walba ka jeceshahay waad ka edabsatay haddii kale edabi ma jirto waaladiina aamanuu ashaddu xubban lilaah ilaahayna wuu ku ammaana wuxuui dadka iimaanka leh iyagunbaa ilaahay cid walba ka jecel adaabta waxaa ka mid a tacdiimu shacaa'irih inaynu weynayno wuxuu ilaahay weyneeyey subxaana wa tacaala waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub diinta ilaahay iyo qaybaheeda waaweyn oo la weyneeyaa waxay sheegaysaa inuu ilaahay ka cabsanayo qofkaasi adaabta waxaa ka mid a alqadab ida tuhikat xurumaat allah markaa diinta ilaahay meel lagaga dhaco inaynu alla daraaddii u cadhoono haddaad reerkiina u hinaasayso ood xoolahaaga u hinaasayso ood naftaada u hinaasayso ood u cadhoonayso ood ilaahay u cadhoon weyda maxay sheegaysaa inaad dadka kale adaab fiican kula nooshay laakiin aanad ilaahay adab fiican kula noolayn taasi halkay taaganta innaga goormay dadku tiifiyada soo fadhiistaanay gambarhka isu fuulaanay wax iska sheegaan oo ay istifaacaan waa marka naftooda reerkooda xisbigooda iyo dowladooda wax laga sheego marka ilaahay wax laga sheego ama nebiga ama diinta cid soo dhaqaaqdo ruqaansataa way yartay ma badna التأدب مع الله قدب كستيدا وحوي التوكل عليه إنه إلهي تلسارنه والتوكل على الحي الذي لا يموت ومن يتوكل على الله فهو حسبه يبيقون عليه الصلاة والسلام وحول هداء إلهي تلسارن لها إذن تلسارشد لبتا لرزقتم كما يرزق طير تغدو خماصا وتروح بطانا أرساقد أولتين ورديسان وهي معناه أرساقد ضدك كؤرق ilaahay baa idin fududayn la sidoo shimbirahaba ugu fududeeyay iyagoo gaajaysanna way ka lahaan iyagoo dharagsanna way soo noqdaan halkuu kaydu yaalay hor alla ay shaqo tageen asbaabta waxa kamid ah waxyaabaha inuu ilaahay kaga edabsanayno ar-ridaa bi qadaa'i illaah inaynu ilaahay wixii uu noo qadaro inoo qorsheeyo raali ka noqono
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقادم واقعي أما كاقعي الأيابك بودبودك قيلدي وحي كترجميان إن هذه إلهي كحشونين سبحانه وتعالى يا كل هذه إلهي باسك كاله عدو ولمن حق بيقول هذا وحي إلا ذين ما مرته النبي عليه الصلاة والسلام مركا مصيبة إلى عذا وحولها وحتى هذا إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. إلهي وحول الله وحي أوقات يوحي بحي الله وضبا حال الله قبصنا يا وحي أوقات دو وحكا قاضا وحكوها هرونيك انت لورنا أمانة يقول هذا انت نوابا سيها يا الحمد لله انت هرنا بضن يسلا آيات وإن بريس أنك إلهي بأسك كايله إنا لله بسجانا وآخرة ونقرنا كل يبلك على هاري مايو وأرن آنو لهين قفكي بلا إيمان ما لها أرن قدرك إلهي رالكم ما هي وقادم وابا كل عنصر هذا نسيواشا إلهي إنه سين وجد بسنة إنه حكم إذا الحلف بالله إنه إسجا كلي كدارن وريركي إنه يحرفركا يقوري حرالها إيو وحاصلنا أتسكت يسكرات كدارنيس لأنه حلقو دارتها وحي أكتاد أقوين أكتنا يا أقوين إلهي سبحانه وتعالى من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قفك دارنا يا إلهي أكو دارتو هديك لا هايسكا آمس يوحن كهدلنا أدابت وحا كمذا كوبيتبنا شكر الله سبحانه إنه إلهي أمهدنا غضب هدي وحي إلهي وكسيو أدافك سيتاك تودي ما نسوي إذا أتكا آمست شكر جيسا دوبكا قادبا هديك لنا وكو كردين إلا واحد ديبتي متشريه وإنه داقي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. marka qofka la xalasiyo wuxuu ka dhigaa waxan wuxuu iska leeyo caadiya kadibna hebel gaar intana uu ilaawaa arintaas waxay ku dhaafinaysaa intaad hayso ilaahayna kabaad edabsanin laakiin si uu kugu kordhiyo ajrina aad u hesho iyo amaan shukrigu waa laga maarmaan qof walibana wuxuu hayaa ka badan wuxuu doonayo waxa kamid ah ta'addubu ma'a Allah at-tawbatu ilayhi inaynu u toobad keeno ha isqancinin ha oran cibaado badan baad sameeysaa quruur yu kugu dhicin shaydaanku yu ka faa'iideysanin dambigaad sameynaysaa uu badan yahay mar walba. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo jiray salaada aad arkaysa qiimaha badan markaynu ka baxno maxaynu leenahay astaghfirullah awwal kalma ba'da salaam marka salaada ka baxda kelmadda u horeysa waa saddex jeer baad istighfaar oranaysa oo salaad baad ka soo baxday istighfaartu maxay dambigaad ku jirtay waa maxay macnaheedu waxa weeye ilaahu sidii haboonayd kuumaan caabudinay kulay waxba isweydaarto waan yar xawilmay mararka qaar kooda ilaahu iga dhaaf sidii aad kugu haboonayd inaan ku caabudo oo aan kugu soo jeesto waxba ka sinooday marka hadii waqtigii aad ugu fiicneed ilaahay hor taagneed lagu yiri istighfaar raaci maxaad u malay waqtiyada kalena dambigeenu aad buu badan yahay قول iyo ficil iyo qalbi waxaynu dadaan isayna kala kacsan markaas ilaahay uu noo ururiyo noo toosiyo waxa laga maarmaana inaynu dhaqankeena u badino tawbada. nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam tusaalo inoogu ahaa ilaahayna wuxuu faray fi suurati idha jaa inuu noloshiisa ku soo gabagabeeyay istighfaarta ilaahayna quraanka waa ku amaanay mu'miniinta inay yihiin kuwa in fara badan ilaahay u toobad keena. يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. نبينا عليه الصلاة والسلام وحولها مالنتي بقول شربان إلهي وتوبت كانا تويدو دنبغي هوريا كي دمبا laga dhaaf idin kuna ilaahay u toobad keena marka ducada iyo toobad keenkiya waa inaan wardigeena ku darnaa labada galinba iyo waqti walba aad xusuusato wixii ka dhacay marka toobaduna waa waajib ayay ku tahay adoomaha kol haduu ilaahay amar ku bixiyay wili tuubu ila Allah tawbatan nasuha marka walaalayaal qofka qiimaha badan ee muuminka ahay sharcigeenu amaanay dhowr iyo 10ka iyo in kala badan oo aynaan xusin ayuu ilaahay kula dhaqmaa aadaaba arrimaha marka qofka laga helo ayuu qurux sanaanaya ilaahay xaqiisiisa iyo umada kalena xaqoodii laga rajaynaya. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.